بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay halku dhiga, hal hayska ama wax loo yaqaan slogan. Haddaba sida ognahay adduunka waxaa ka jira shirkado badan, isbitaallo badan, xarumo badan oo ganacsi. Mid walbana wuxuu leeyahay magac iyo hal hays u gaar ah ama halku dhig u gaar ah. Maanta waxaan fiirin doonaa waxa uu yahay halku dhiga iyo waxa uu ka saaciday ganacsiga. Waxaan wax ka weydiin doonaa Ustaad Maxamed Shardiid oo ah bare jaamacadeed waxa uu yahay halku dhiga iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. Nugureen waa ku salaamay Masar Axmed adiga iyo asxaabta kugu xiran waana ku dhawahay dabcan barnaamijkaaga. Magacaygu waa Maxamed Xuseen waxa la garan ogyahay Maxamed Shardiid waxaan kamid ahay barayaasha jaamacadaha Muqdisho. Dabcan halku dhig waa erayo la isku geeyay oo loo isticmaalo suuqgeynta. Erayada halku dhiga waa inay noqdaan erayo si fudud loo xasuusan karo. Dhammaan shirkadaha waaweyn waxay leeyihiin erayo halku dhig ah. Hay'adaha noocyadooda kala duwan oo kale waxay leeyihiin halku dhigyo u gaar ah. halku dhiga waxaa luqadda Ingiriiska lagu yiraahdaa slogan. Dabcan halku dhiga waa qaab la doonayo in wax loo sawiri karo wali si taxadar leh marka la doonayo in si fudud wax looga sawiro maskaxda bulshada ama macaamilka. Waxa wanaagsan inaan abuurno halku dhig. halku dhiga wuxuu ganacsiyada ama ganacsatada ama si guud ganacsiga baa uu ka caawiyaa ama uu u soo jiidi karaa macaamilka iyo dabcan si guud indhaha dadweynaha. Tusaalooyinka haddaan u gudubno dabcan waxaan soo qaadan karnaa tusaale caan ah oo waxaa og tahay shirkad waxaa jirta la dhaho LG oo laga soo gaabiyey Life is Good. dabcan waqti hadda laga joogo ku dhawaad 70 sano ayay shirkadani aasaasan tahay sida magaceeda iyo halku dhigeeda ka muuqataba waa Life is Good. waxaa kaloo soo qaadan karnaa shirkadaha caanka ah ee dabcan eegan leh halku dhig dabcan taaba galay shirkadda la yiraahdo Nike oo iyadana halku dhigeedu uu yahay Just Do It. shirkadda Nokia oo iyadana halku dhigeedu uu yahay Connecting People. shirkadda la dhaho Walmart oo iyadana halku dhigeedu uu yahay Save More, Life Better. sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa shirkadda weyn ee Somtel oo iyadana dabcan halku dhigeedu uu yahay Share Your World. sidoo kale Dahabshiil oo iyadana uu yahay Fast Transfer You Can Trust. Takaful la soo qaadan karnaa Insurance of Africa. dabcan halku dhigyada kuma koobno shirkadaha sidoo kale waxaa jiro ashqaasta ama siyaasiyiinta oo kale dabcan waxay leeyihiin halku dhigyo u gaar ah. tusaale ahaan waxaa soo qaadan karnaa madaxweynaha hadda talada haya wadanka wuxuu lahaa halku dhig Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah. sidoo kale isbitaalada kama marna waxay leeyihiin halku dhigyo. tusaale isbitaalka Dalmar halku dhigiisa waa higsigan waa caafimaadkaaga. sidoo kale waxaa jiraan xarumo badan oo ganacsi oo leh halku dhigyo. waxaan rajeynayaa inaad wax badan ku fahamtay mowduucan. waxaad noo reebtaa halku dhiga jaamacadaada, iskuulkaaga, xarunta aad ka shaqeyso ama goobta aad wax ka barato haddii ay leedahay halku dhig ama haddii ay jiraan halku dhigyo ku cajabiyey. waad mahadsantahay.